markale xukunkiyo xilkaaga udhi waa jawgii saaka ee jamaahiirta taabacsan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ay mar kale magaalada Laascaanood ku waabarisatay kaasoo taageerayaasha xisbiga kulmiye maalintii saddexaad u lahaayeen ololaha doorashooyinka jagada madaxtinimo ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda umuuraha gudaha Soomaaliland gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye wasiir dawladda beeraha xildhibaanada ka tirsan golaha wakiilada gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Sool ayaa kala qayb galay ololahani taageerayaasha xisbiga kulmiye waxayna socod luga ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ah ee dhexmara gudaha magaalada Laascaanood iyagoona markii dambe isugu soo biyashubtay barxadda khayriyada halkaas ay khudbada uga soo jeediyeen shacabkii isugu soo baxay taageerada xisbiga talada dalka ayaa waxaan idin sheegayaa anigoo ka gudoomiye xisbiga talada hayn jiray udub ana idin sheegay inuu dhacayo xisbiga kulmiye hadduu dhacayo anaad garan lahaydeen wuu guuleysanayaa xisbiga kulmiye wuu guuleysanayaa kulmiye Soomaad garan waa soo dhawaynaynaa si wacan baan u soo dhawaynaynaa haddii ilaahay maayo dadku waa kulmiyeysan yahay waxaan halkan fariimo uga dirayaa rag maalmo dhaweyta halkan ka hadlay oo xisbiga eedeeyey horta sideedaba raggii xisbiga kulmiye ku jiri jiray xilalka ka hayn jiray ee maanta inta xisbiya kala galeen doonaya inay gobolka dawakhiyaan oo khalkhaliyaan waxaanu leenahay dadku xoolo meesha idinku xiraysan maaha dhammaanteen waxaynu aad ugu faraxsannahay inaynu ka soo qayb galno xafladdan qiimaha badan ee aynu ku maamuusayno inaynu isku tusno awooddeenna innagoo taageerayna xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga kulmiye ha guulaysto maantana anagu xisbiga golaha dhexe ee wadani baanu hayn maantana waxaan soo digirabinay xisbiga kulmiye ee talada maanta gacanta ku haya wuxuu qabtayna waa la ogyahay xaaladuna 100% guul baynu taaganahay shacabkana maanta kulmiye